isbitaalka Buhol Health Center oo kamid ah isbitaalada deegaanka Buhol waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay mashruuc loogu magac daray ilaalinta aragga waxaana mashruucani fulinaysay hay'adda Horn Africa Safe Vision iyadoo ay maalgelinta lahayd shirkadda isgaarsiinta ee Telesom waxaana habeennimadii xalay loo qabtay xaflad lagu soo goodinayay dhakhaatiirtii fulinaysay mashruucani kafaalaqaadka aragga waxaana xafladani ka soo qayb galay madaxda shirkadda Telesom iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Buhol waxaan leenahay shirkadda hay'adda Horn African Safe Vision iyo Dr. Xalaal iyo tiimkiisa waxaan leenahay barnaamijyadani waa jecelnahay inay sanad walba ugu yaraan haddaysan laba jeer noo dhacin mar noo dhacdo waxaan ku soo gabagabeynayaa mashruuca intii ka hadhay kadib maanta oo kale hadda 4 qof baa la qalay halka maanta hore dad ka badan 50 qalinka lagu bilaabay way soo yaraanayeen hadda waxaa muuqata inaan lambar kale in si degdeg loo yareeyo adag tahay مشروع نفعه انت باقي لو هذا قولنا كلام برصن يبغى بعدين انت وحنو كدور لي بل إذا إذا دورنا قيد كمدا لو بروحيو إن شاء الله هدي الله يكدو لما عشك بعدين راس عامل بعدين تكلم أنا كده بيستريح هدي أنا وحير كتابته هذا هنا في كونسيفيشن وحلا أساسي سنة كي لو يكون يافر يتوان كي أواخر كذي waxaa aasaasay dhakhaatiir Soomaaliyeed ilaa 8 dhakhtar oo inta ku takhasustay indhaha waxaa loo aasaasay magaalada Hargeysa waxaana loo aasaasay in ay daboolaan baahida indha la'aanta ee ka jirta waddankeena Soomaaliyeed indha la'aanta waddanka waxaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso 1.2% taasoo u dhiganta dad ka badan 140,000 oo qof inay la nool yihiin indha la'aan iyo arag ka hooseeya intii ay mudnaayeen inay ku noolaadaan dadkaas in badan oo kamid ah waxay ku nool yihiin deegaano aanan lahayn daryeel indhaha haba yaraatee in badan oo dadka kamid ah waxay la nool yihiin indha la'aanta muddo 10 sano iyo 20 sano kor u dhaafaysa sabab la xiriira dhaqaale la'aan ama deegaanka ay ku nool yihiin oo aan lahayn daryeelka indhaha sidaa awgeed ayaa hay'addan loo aasaasay in ay buuxiso baahida ummadda dhibaataysan ee wax u qabato هدفك أول إلا أنا وحيتها إن وطن كان أما بود أهم منطقة الصومالية الدكتور جيس كأفريقيا إن لقى في إيو إن دلعانته اللي هو تيكرو سيدا العذر كان وبدن إن دلعانته كان إعادة كمل دبرجوين كرو وهي واحد لصق الدهدة قف كستوك جبوه وقصو بالعبنية لكن وحن لدى علم إنه وحيتها إنه قف إن دلعانته ولون ورابو كي كوي مالي ده بيرنا ومارك وهلا الحمد لله رب العالمين إلهي لأنه محمد ووخب خلي فحانه كاري وقانه محمد لقاسين خيالي إذا ما أحيانه مستفد يتلس بلسنه إذن كان وحوى الموضوع إيش تختلال النويني إذا نوق علي أنا لو وحبا أركينين إذا نوق علي يعني أم كان قرور حقورينه الحمد لله رب العالمين دي أم حيثي قوة طمانبات أرنكاس وحوين حياة الفلسي هون أفريكا سيفيشن وقالي هذا محيط هرمود كيدنا ويحي محيط الفرحلات عادي هذا يعني بدون ما هتعدنا حمدان هاي حوشة وقبتين مجساك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa sida caadada inaan ku bilaabo mahadcelinta oo ah wax waajib inagu ah inaan u mahadcelino qof kasta wax inoo qabta oo aynu ka bilaabayno barnaamijkan hay'adda hogaaminaysay Horn Africa Safe Vision iyo Dr. Axmed shirkadii maalgelisay shirkadda Telesom oo inagala joogo caaqilkeeni caaqil Cabdisamad xaruntii lagu fuliyay Buhol Health Center iyo Dr. Maxamed Shiine oo ragii barnaamijkan iyo afkaarta soo dejiyay inta waynu mahadcelinayna ilaahay ina abuurtay ayaa mahad hawsha halka ka dhacayna waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahayna faray ee diinteena fartay waxa weeye in la isu naxariisto waxa weeye dhaqtaradu waxay la yimaadeen inay dadkooda cilmigooda uga faa'iideeyaan annana waxaan u suurtagelinay in dhaqaalihii ay ku suurtageli lahayd ay helaan waa naxariis
diinteena aanayna faraysa daynu isu naxariisano ilaahay baa inoo naxariisanaya وسدام عبد الله عبد TV عالمي Somali Cable بوهول